بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى waxaan soo jeedin doonaa mowduuc ku saabsan bilashada bisha Ramadaan ama bilaha oo dhan marka la eego ru'yada basariga ah iyo xisaabta falaga waxaan isku dayi doonaa insha Allah taala inaan jawaab u helno أهمية intee la eg ayaa cilmigan ama xisaabtan falagu oo islaamku siiyay waxa laga yaabaa dad badan inay u qabaan cilmigan falaga iyo sharcigu inaan calaaqo lahayn ama quraanku inaanu ka hadlin waxaan isku dayi doonaa marka insha Allah taala inaan aayaadka quraanka ee ka hadlaya dawaahirta falakiga رب سبحانه وتعالى وكحري عباداتك وكحري ولبا عباداتك يوان لك الريبين هدي صلاة هاي هدي صونت هاي هدي زكاة هاي هدي حجت هاي لما عباداتك أصور دمي وهي اعتمادا يعني كحريهين ظواهر فلكية ظواهر مركا فلك وحال يراوي علمي وكسابسان وحيالها سمادة مرية ويقرحدو كم التهاي ويحدقو كم يديهين وحيالها كلا وحدقاها يقرحد آنهين باكرة ويقونا سمادة مرية سمادة واسع آد بواسع وتهاي سعادة wax laga yaabo qofka caadiga ah uu tasawiran kara maaha samada ay leedahay sababtoo ah xidigaha hadda aynu u jeedno cirka fogaanta ay inoo jiraan waxa lagu cabiraa cabir la yiraahdo asana dawiya carabiga lagu yiraahdaa ingiriiskana waa light years waxa laga wadaa masaafada iftiinku uu jaro muddo sanad ah يعني سند مدة افتينكو مسافة انت لك بوشري كرا هذا مركب حكت الماما سرعة افتينكونا هل كي البرقسي افتينكو وحو ترى مسافة لك سدح بقول او كن او كيلومتر وهل كي البرقس افتينكو وحو ترى سدح بقول او كن او كيلومتر سند مركب انت يكو قادته ماشي halkii ilbirqsi uu ka jarayo 300 kun oo kiiloomitir daqiiqadii waa 60 ilbirqs saacadiina waa 60 daqiiqo Soomaali maalintiina waa 4 saacadood sida ku wad sanadkuna waa 365 maalmood masaafada ay ku qaadanayso iftiinka ayaa lagu cabiraa xidigaha inta ay inoo jiraan qaarkood marka waxay inoo jiraan millions oo sanado u yalaad yeeris qarna billions meelo jira wax aad u fog islaamku marka la fiiriyo cilmi falak islaami physics iyo astrophysics wax la mid ah calaaqa hadda lama leh wuxuu calaaqa leeyahay cilmi falak islaamigu inta ahmiyada ay ka leedahay ee shariicada la xiriirta sida salaadaha waqtigooda in lagu ogaado lagu xisaabiyo ama bishu marka ay soo galayso bilaha oo dhan ama cibaadaadka bila badan baa ku xiran in la ugu ogaado lagu xadido bisha goorta ay soo galayso waxa kale oo kamid ah cilmi falaga qibladu meesha ka jirto in lagu ogaado lagu xisaabiyo qiblada in lagu xisaabiyo waxa kale oo kamid ah oo quraankuna ahmiyad badan siiyay navigationka dadku inay jihooyinka iyo ku ogaadaan oo xidigaha ay noqdaan وبالعلامات هم يهتدون marka ay noqoto habeenkii marka ay bad la saaran yahay ama mugdi ay tahay in lagu ogaado jihooyinka oo dadku ay markay safrayaan ay u noqoto wax ay ku ogaadaan meesha u socdeen marka inahaas baa inta badan cilmi falak islaami uu ku kooban yahay
oo in salaadii lagu xisaabiyo bilihii goorta soo gal in lagu ogaado qibladii in lagu ogaado iyo in calaamaadka constellationka cirka iyo in la ogaado jihooyinka ay ka xigaan xidigaha waa aragteen Soomaalida way yaqaaniin oo Orion oo kale nin la gigay u yaqaaniin xilli uu soo baxaa kuwaas xilliyay dhacaan guga lagu ogaadaa waxa lagu ogaadaa marka jilaalku uu yahay waxyaalo badan aan xilliyada bay calaamad u yihiin iyo jihooyinka bay calaamad u yihiin kuwaasna marka waa jihooyinka insha Allah taala marka caaw xisaab daqiiqa kama hadli doono qalin warqad xisaab calculation in aan ma sameyn doono oo booskeeda maahan qofkii laakiin u baahan inuu xisaabaadka wax ka ogaado wuxuu booqan karaa channelkayga YouTube-ka oo aan hadda ka hor sida qiblada loo xisaabiyo video kamid ah baan kaga duubay bisha dhalashadeeda sida loo xisaabiyo iyadana 3 video oo isdaba jooga baan ka sameeyay salaadaha sida loo xisaabiyana warqad cilmiya oo aad internetka kala soo degi kartaan walow English ay ku qoran tahay ama markaskul falaki oo ay Imaaraadka aad web page-kiisa kala soo degi kartaan ayaan iyadana hadda ka hor ka qoray iyadoo waa warqad dheer qofkii raba si daqiiqa inuu waxyaalaha u fahmo laakiin hadda ahmiyaddu waxay tahay in fikrad guud laga qaato iyo ahmiyadda ay leedahay quraanku marka runtii aad buu uga hadlay cilmigan falaga kelmadda falagna aad bay ugu soo aroortay quraanka naftigiisa oo وارك الشمس قمرك سورة ياسين وكل في فلك يسبحون وكل في فلك يسبحون فلك مركه وروت أما أوربت أي مريان أجرامتن سماوية أي مريان Soomaali de wuxuu noqon karaa I don't know meeraha shayga naftigiisa mise dariiqa u marayo dariiqan ay qoraxda iyo dayaxa ay marayaan dariiqaas way falag yani dhamaan gram bay ku socdaan waxa ay u jeedno dhan waa wada soconaya way marka dhowr aayadood baan tilmaami doonaa insha Allah taala suuratul baqara inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar yani u fiirso rabbi subhanahu wa taala wuxuu ku tilmaamaya samaawaadka iyo arlada iyo ikhtilaafu al-layli wan nahar u fiirso habeenka iyo maalintu waxay ka dhashaan israga dhulka uu isrogayo dhulku waa isroga udubdhaxaadkiisu isku roga habeen maalin baa ka dhashay inuu qoraxda saa ugu soo jiirayna sanad baa ka dhashay iyo xilliyada ka dhashay marka waa daahira falakiya ikhtilaafu al-layli wan nahar habeenka iyo maalintu inay isdaba marayaan وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وكونستليشن كعركة حدقها ويسوون فلق آذو تلمامية وحاجرة صودا يعني لبية طبعا تذكر المنازل بروج وحنون قالنا تذكر واحتر صداء ورمية إنه رأي ذو سوالي قارب واحتر سنشري يعني ضيح انتاسو منزل بودقا قرح انتاسو منزل بيدقان أبراج وحل يراهدو waxyaalaha yani lagu ogaanayo xidigaha qaabab ay leeyihiin iyo pattern oo la oran kuwaas waa laxo baan rahnaa kuwaas waxaan magacyada Soomaaliga ay u kala leeyahay madaxa kale magacyo u yaqaaneen constellations baa leeyahay Englishka lagu yiraahdo marka وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون رب سبحانه وتعالى وينكم من الشيغانيه وحكم إذا سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات وحلاسنا هو أجرام سماوية وعلم الفلك وكسابسية وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل يعني ضيحي وحلي منازل ودقوه إلى 26 منزل ومربى ومرحلة مريو marxalada uu dhalanayo marxalada uu noqonayo badarka oo iftiinka buuxo marxalo kale oo hadana markuu sii dhacayo ay sidii maaragtay uu noqonayo sida quraanku hadda uu ka cabiray kal urj hatta aada kal urjun alqadim sidii laan timir oo soo godatay oo kale waa bishu marka ay dhalan rabto kale ama marka ay dhalato oo kale yani iftiin yar oo maaragtay qaansac amala bay noqonaysaa urjun alqadim taas laga wada لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وهذا ظواهر فلكية قرحة يضيح مرة إسقاري مايان إلى لا يبقى عجائب كم تايم لأنه
laba ruud ama laba meere ama laba falag oo marna aan taqaaduc sameeyay aan kulmayn bay ku socdaan yani qoraxda iyo falagu qoraxda iyo dayuxu laba falag oo marna aan taqaaduc sameeyay isuna taqriiban marba waa sawiri doona insha Allah taala marka sawirdan ku sawiri doona xagal 90 degree camal bay isku yihiin 90 degree camal bay isku yihiin saasay isku yihiin مرنا سورة قلمها مركا إن تقاطع سميان لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون مثل السنة فلك جيسة أيوك سعداء هكذا آياتك الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطر يعني آيات بنتي آد أفربضا وحمك عجائب القرآنكو socodka dayaxa iyo qoraxda wuxuu ka dhigay Rabbi subhanahu wa ta'ala wax aynu wax ku xisaabsan oo waqtiga lagu sheegay waqtiga daqiiqada iyo saacada iyo aynu ka hadlayno waqtigu wuxuu ka dhalanayaa israga dhulka socodka qoraxda iyo dayaxa waqtiga la sheegayo dhan intaas ka dhalanaya markuu isrogo dhulku isroga waxay ku qaadataa hal maalin 4 saac bay ku qaadataa dhulku markuu saa isrogo yani saan isroga ya dhulku saana waa u soconaya labada saba saan waa isroga oo saan isrogayo waxa ka dhalanaya habeenkii maalinta ama 4 saac baa ka dhalanaya Soomaali saan socodka u soconayo qoraxda ugu wareegayna waxa ka dhalanaya sanadka ka dhalanaya xilliyada ka dhalanaya dayuxuna isaguna dhulku ku meeraysanaya waxa ka dhalanaya bishii baa ka dhalanaysa marka waqtiga aynu xisaabsanayno dhami wuxuu ka dhalanaya socodka qoraxda iyo dayax ayuu ka dhalanaya oo aynu salaadii ku ogaanayno xilliga soo gashay aqimi salata liduluki shams ila ghasaqi al-layl Soomaali يعني سلادي إنه تكنين وحلقوا حري صعدك قرحة أيال لقوا حري الشمس والقمر بحسبان قرحة دي يضيحوا حساب دقيقة أو أنخل دمين أيكو سعودان وفرس قرحة يضيحوا حساب دقيقة وأنخل دمين بيكو سعودان يعني وعجائب اللي قرحة يضيحوا روتك أي مريان meel oo jam galayaan maaha wadada markana gawaarida wadno soo gawaaridu isma ciriiriso oo meel baa baloogaraysan oo gaari baa ku hor istaagaya oo marka isbiirkii gaarigu marna hoos buu dhacaya mar waa istaagaysa laakiin qoraxda dayaxu saas maaha waxay haystaan wado aan cid wax ka hor imaanaya aysan jirin wax ciriirinaya aanay jirin surcada iyo xawaaraha ku socdaana isbedeli maayo in marka la xisaabiyo dadku waxa laga yaabaa inay faham u qaataan in la xisaabiyo qoraxda iyo dayaxa meesha ay marayaan daqiiqad kasta inay wax adag tahay wax aad u fudud waay sababtoo waxaad ogtihiin dadka ardaydu inta badan dadku hadda arday wada technology hadda waa hormaray wada ogtihiin dadku arday wax bay wada barteen shay haddaan ogahay surca xadidan ku soconaya oo halkan ka tagay oo halka ku tagay gaari haddaan wato 100 kilomitir saacadii ku soconaya oo aan isbedelayn wadaduna ay siban tahay istaag iyo hakad midna aan lahayn daqiiqad kasta meeshu maraya waan ogaan karaa Soomaa mise ma ogaan karo laana waxaan ogahay hadduu 100 kilomitir ku soconayo saacadii nus saac kadib xagee buu maraya intee buu jaray nus saac kadib 50 kilomitir buu jaray Soomaa laana saacadii muxuu jarayaa 100 buu jarayaa Soomaa nus saac kadib wuxuu jarayaa 50 kilomitir Soomaali marka waxaan ogahay daqiiqad kasta meeshu marayo baan ogahay waa sidaas qoraxda iyo dayaxu surcadoodu waa wax aan isbedelayn masaafadooduna waa xadidan tahay sida daraadba waxaad ogaan kartaa daqiiqad kasta iyo second kasta qoraxda dayax meesha marayaan baad ogaan kartaa waxaad u sahlan ولهذا waxa la xisaabin karaa salaaduhu goorta ay soo galayaan kunka sano soo socota waay
sababta qoraxdii isbedeli mayso wax isbedelaya maaha ilaa adduunka ilaahay rogo oo si kala u galo ilaahay subxaanahu wa ta'aala adduunku markuu rogayo oo qoraxda la yiraahdo intay istaagto bay meeshay u dhici jirtay bay ka soo baxaysaa waa xaalad kala taas laakiin xaaladda hadda caadiga qoraxdu waxa weeyaan routiinkeedii bay haysataa saadalaada salaadii inaad ogaatid goormay soo galaysaa inaad xisaabisaa wax aad u sahlan xisaabtaas wax fudud waa laana surcada day qoraxda way xadidan u fiirso waxay ku socdaa qoraxdu saacadiba waxay gooysaa u fiirso saacadiba qoraxdu waxay gooysaa 15 degree circle waa imisa degree qoraxdu waxay maraysaa jiiray maraysaa Soomaa circle bay sameynaysaa saasay circle u sameynaysaa circle waa intee degree imisa degree way 360 Soomaa waa macluumaad basiid oo dugsi hoose waay ani waxaan ka hadlayaa caawin dugsi hoose ma dhaafsiisana qofkii ilaa dugsi hoose aan dhigan waa hawl kale isaga u taalla waa laakiin waxaan ka hadli doonaa caawa macluumaadkan ka hadlayaa wax dugsi hoose dhaafsiisan ma wax cilmi weyn oo u baahan jaamacado iyo digriyo waaweyn ma daa'iradu ama circle-ku waa 360 habeenka iyo maalinta marka waxay ku qaadataa 24 saac Soomaa haddii aad 360 aad 24 u qaybiso maxaa ku soo baxaya imsa ku soo baxaysa inta soo baxaysa calculator ba haysataan soo qaybiya maxaa ku soo baxaya soo qaybiya inta aan 360 waxaad u qaybsan 24 15 Soomaali surcada qoraxdu waa 15 degree saacadii intaas يعني isbedeli mayso ilaahay adduunkiisa kale u galayo saacadii waxay ku socotaa 15 degree bay ku socotaa soo gara aad yani wax basiida waa 15 degree waa bay saacadii goynaysaa qorax dayixuna wuxuu gooyaa 14 iyo bar taqriiban saacadii budayixuna gooyaa fact dayixu wixii baan sahlayna laakiin qoraxda maaha waxa soconaya in reality waxa soconaya waa dhulka isrogay qoraxda si kale u soconaysa laakiin hadda habeen iyo maalinta waxa sameynaya waa dhulka oo saan isu rogay laakiin si u fududaato qoraxda inay soconaysa ka soo qaadayna laana qofka bini aadamka wuxuu arkayo yani waxa ishiisa ay marka qaas go illusion wuxuu qofku arkayo ishiisa waxa u muuqanaya qoraxda inay soconayso soo ma garan marka dayixu isagu wuxuu ku socdaa surcadiisu marka la fiiriyo inuu ka soo baxayo bari oo u socdo baalkan 14 bar inta kala horeeyaan marka inta kala dheereeyaan imse kala dheereeyaan saacadii inta kala dheereeyaan 14 bar 15 maxay kala dheereeyaan half degree bay kala dheereeyaan Soomaa good half degree bay kala dheereeyaan okay marka haday saaka soo wada baxaan u fiirso haday saaka soo wada baxaan qoraxda dayux lixda haday soo wada baxaan qoraxda dayux qoraxduna ay dhacayso lixda kale ay dhacayso waa 12 saacadood Soomaa imisu ka dhameynaya dayixu marka wax go'an oo la fahmi kara ma la fahmi kara imisu ka dhameynaya dayixu u fiirso waxaan niri kan surcadiisu waa maxay 15 degree saacadii waay kana 14 bar wuxuu ka dhameeyaa saacad kasta nus degree buu ka dhameeyaa Soomaa 12 saacadood nus degree ah imisa ku soo baxaya 6 degree يعني ساعات 6 degree waa qoraxda markay dhacdo dayixi wali maxaa u harsan 6 degree waa u harsan Soomaaliya yaa ku baraarugsan habeen walba dayixu marka uu bishu dhalato habeenka ka dambeeya bishu markay caawa dhacdo habeenka ka dambeeya imise ku goormay dhacdaa bisha laba dhacaysa habeenka ka dambeeya intee buu ka dib dhacaa ma ogtid dayixu dib dhaca habeen walba يعني marka ay bilowga bisha waa wada dhacayaan Soomaa 14 kana cagsi bay isu yihiin 14 ka qorax marka ka dhacayso day xageeb ka soo baxayaan halku ka soo baxaya soo isma ogid marka damay dhalanaysana waa wada dhalanayaan yani laanahu wa xisaab daqiiqa ay ku socotaa waxa soo dhan habeen kasta dayixu imisu ka dib dhaca qoraxda markuu dhacayo intee uu dib u dhacaa ya كنتن دقيقة تقريبا كنتن دقيقة هبين كست عاو
markuu dhaco waad fiirin kartaan caawa markuu dhaco habeen dambe wuxuu dhacayaa markuu caawa dhacay 50 daqiiqo kadib uu dhacaya saadaradeed marka qaarkood yani waxa basiido ay ku ogaan karaan inay bishu kow tahay ama ay laba tahay waxaad ku ogaan kartaan haddii ay bishu caawa ay dhacdo 50 daqiiqo wax ka yar hadday dhacdo maxay macnaheedu tahay bishaas ma kow ama waa labo waa kow simple as that وفرس يعني وقاعدة بسيطة يعني لأنه هذه لبطة هاي وقيران مركي كودة هاي كنتم دقيقة كسيد بديع لهاي سوما مركي أي كودة هاي عاوة كلا دي كودة 8 دقيقة أي قرحة كدم بيسي هبان دم واحد كدم مينسا لحدا دقيقة سوما ركت بكدم مينسا يعني هو عمليات بسيطة وحسابة ومعقدة أنا هين وهذا سهل سوما كده dadku laakiin weynaanta bisha iyo yaraanteedu ma muujiso inay kowta inaan kow ahayn ma muujiso yani weynaanta bisha iyo inay yar tahay ma muujiso inay kowta inaan kow ahayn okay intaas marka waa muqaddimaad aan uga baxo guud in fact quraanka ama nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo sheegay bishu inay lagu soomo أما لو أفرو أرجع سوساس ما صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم إما سأصار فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 محاك الله صار فإن غم عليكم فاقدروا له نعم وحكى الله صار فإن غم عليكم فاقدروا له ما شاء الله marka kelmada faqduru lahu maxay tahay macnaheedu faqduru lahu macnaheedu maxaa laga wadaa yani culimadu runtii laba ra'yi bay leeyihiin yani lil amana labada ra'yi waxa weeyaan jamhuurtu iyaga ra'yigooda waxa weeye faqduru lahu waxa laga wadaa رواية كلا فسرتي أو رنا فأكملوا عدة شعبان 30 سو ما لكن رأي كلا تشرا أو رنا فقدروا حلقة وذا حسابية إلا حساب اللي قدس بالغ وذا سو ما رأي أمريكا رجعتها وحكم ذا تابعينتي وحكم ذا مفهوم كتقديركم إنه لم عني حسابنا ده القرآن كنفتي سات المامي أو حكت المامي وكل شيء عنده بمقدار شيء كسترب أكتيسه ووحشان قوان وحساب سنوى وقدره منازل مركا يعني وحساب سنوى عاو حقيبي بشو شوكتا هبدا ما حقيبي شوكتا وحساب سنوى كان قوان منتظم وحسابه الشمس والقمر بحسبان ونقصون وحساب سنوى لتعلموا عدد السنين والحساب سمعنا لعدد السنين والحساب وحسابه سمعنا مركا وين حساب لو السعود هذا إن كل شيء خلقناه بقدر يعني شيء كان قوان وتقدير كيوه مركا إنه هذا صلاتها محينو كتكنا كأدنا صلاة وقت يسوق لان مله يا وقت بحنا طول محينو كأدنا وإن هذا إنه كتكنا مفعل علم فلك بأنه أذاك سنة مس أركتب أنه أذاك سنة محينو كأدنا هاي محينو كأدنا هذا الصلاة هذا تقويم بان استعمال تقويم كاس محو كل شيء هاي الحساب إن فاكت وحالة غريبة ورنتي أباهن إن سيد دبل لا يسوي ديو صلاة قاركو تقويمنا كما سعنو أركتنا كما سعنو وحبا كما سعنو خاصنا كما سعنو عاوة إلى إمك وحان يسوي ديا محين كسعنا صلاتنا هذا أجو وركنك قدام بي أركان الإسلام كعورة الإسلام مركب فرميس صلاة دي ومش قدام بيسوي أنت وقيت كهذا اللي صحي وايو صلاة بل صومك هبت شوقي ومشكله قلبت هذا عصر كي مساج كان مساجد الكلبة يلا لك السوق المقالة بوصاصه وحي أدنتان حلي أنا صلاة السوق المده بدن كور ما عصر كلا أدمي هذا صدح له ها توند ما صومه هل كان محاكو قرن إنه سوق الشيء ما تعصر
saddex sagaal toban exactly xilligaas soo gashay salaad qofkii muran ka qaba xilliga inaan sagaal galin waa inuu keenaa cagsi adilla cagsi waa inuu keeno ya qofkii la maaragtay salaad xilliga ma soo galin daliil baa laga rabaa daliilka laga rabaa muxuu yahay qorrax baad korka guriga masaajidka soo saddex kore maaha بري بعد قري بعد صوت تاجي صدق كورة قري قام مركها تاجتو هركيسة حسابي نستا العصر قرب سوق عشان مركها شيء هركيسو أيسلك كذا صومه مركها لقرها بذل الزوال ذل الزوال مركها لقرها هدي أو نقوم وايو هدو نقوم وايو وفرسو شرط من حري هالكا وهل نعم هدير أي أنت أرنكاس هدو خلدمو شن بقول $1 بحنيه يا اسكو شنطها بقول قاضنا يحجيني intuu soo cabiro hooska bari salaadu haday xilliga soo gali weydo halka ku qoran $500 buu leeyahay ya arinka qaadanay soo ma aragtaan marka waxay tusinaysaa masaajidkan kaliya masaajidada dhan waay aawa alla waxay ictimaadaan bal adigu sheeg la hoos baan ictimaadin la xisaab falakeysan ictimaadin soo ma garan wax ictimaad lama yaqaan wadanka dhan almost wasaas waxa la iskala qabsaday saddexda la adima casarka salaada subax ani hadda marka qaarkood waxaan la tukadaa jamaacada sababtoo ah maxaa la aqima markay soo gashay goorma la aqima iyo 20 meelaha la aqima Soomaa almost markay soo gashay marka hadii ay aqimi lahaayeen 5 iyo 10 laba tukadeen aniga sababtoo ma soo gelin salaad waqtigeeda ma xumaan kala masaajidka loo salaad waqtigeeda ma soo gelin Soomaa salaadu macnaha aadaanku waa in lagu adimo waqtiga salaada inay soo gasho salaada subax hada masaajidda badan baa ka hor adima daqiiqad laba wax badan kama hor dhacaan laakiin waa ka hor bay dhacaan ramadaanka hor halka waxa la isku haystay hal lagu adimo maxaan ku raahdaa tawqiidka iyo lagu adiminay tawqiidku waa horeeya Soomaa hada tawqiidka waa laga hor dhacaa imsa ku qoran salaad subax saaka imsa ku qoran يا فرتن إنسان كقول فرتن شنمية ساك أنت مساج كوام مقلا موارق قرق حجام كفوجاي لما دقيقة ملها تتكذب بعدين بانو من 6 دقائق ما كان فرتن تزيد 100 دنتين ملهاس صباح هوري دقيقة بكور مريسين كويدون والله مت كويدون والله مت يعني حلية تم وكهر بعان مرنا وحلقوا كري لا هي توقيتك كوأدماء خاصة رمضان كوضد بنا كوا سوميان وكوا كسحورانيان ومارك توقيت كاسي بقول مستحيل قفك كقبة تشالنج العقب نصينية أو بروف قرين كرا شو ما قرا قفك عداية إنه نصحنين وحليه العقب وليه شو ما قرا exactly واسحين شو ما قرا حساب دقيقة بكوس عضا أوكي وحنو إيماني يا مركا بشا لا شدة وعاوة وها فاكتي لبقى ديال ما رنا ينان كلا صار أو بانروتي إلا كلا فهم labada qadeedo waxa weey oo dadku mararka qaar kood ay isdhex galiyaan bisha marka la leeyahay hal arko ama aragtiha lagu arko ama xisaabha lagu waxeeyay waa marka bishu ay cirka joogto waa marka bishu ay cirka joogto maxaa ka marka bishu cirka joogto yaani qorraxdu markay dhacdo kadib waa in bishu joogtaa cirka ولا فهم صومه وين قرح ذي بيش هرد عضه قرح وين هرد عضه هدي لكن بيش هرد عضه بيش هدي هرد عضه بيش قرح ذي يضيح يقرح ذي كذا هرمرة كهرية شن يتوم برينا قرح ذا هرية شن يتوم برينا محا هرية ضيح هرية صومه صابته ضيح بحوجة جابية markay isla dhacaan markay bishu bilaabanayso ilaa 15 ka hore halka qorax markay ka dhacdo dayixna halka soo baxayo 14 ka hore waxa horeysa qoraxda horeysa soo ma garan kadib maxaa hormaraya dayixi baa hormaraya ila wuxuu waa jiro seerka la isdaba joogo moogta seerka la isdaba joogo ilaa bishu waxay dhalataa markay isa soo gaaraan oo ay qorraxda iyo dayixu marka ay soo gaaraan bay bishu dhalataa okay filooyin baa igu xiran I don't know inaan filooyinkayga jiidan karo marka aan raba sawirradaan rabaa inaan wax yar ku muujiyo insha Allah taala si ay u sahlanaadaan soo ma garan yani
waa laga yaabaa dadka odayaasha iyo inay xoogaa ay ku adkaato laakiin runtii dadku xoogoodu waxbuu soo dhigtay oo dee wax badan buu fahamsan yahay waxyaala waxaa jira laga gudbay oo hadda aan muran u baahnayn masalan waxaa ka mid ah qoraxdii markay sidaan tahay dhulkiina uu sidaan yahay soo ma aragtid qoraxdii dhulkii waay dhulku inuu sidaan isu rogo saa inuu isu rogo waxaa ka dhashay habeenka iyo maalinta habeen iyo maalin baa ka dhasha dhulku inuu saa isu rogo soo ma aragtid inuu sidaa intuu u socdo saa u soo wareegana waxaa ka dhasha sanadka iyo xilliyada baa ka dhasha soo ma aragtid labadaas socod buu dhulku waa sameeyaa waxaa isaguna jira socod kale oo qorax dayaxa ah dayaxi waa kan isaguna saanu u socdaa wuxuu ku dhul wareegaa dhulka soo ma aragtid dayaxina isaguna dhulku saa ugu soo wareegaa dayaxa marka waxay ku qaadataa dhulka inuu ku wareego 29 dhibic taqriiban iyo bar maalmood bay ku qaadataa intaas dayaxa ku qaadataa inuu soo wareego oo jiiro buuxa sameeyo waa waxa marna 5 u buuxsamayso oo 30 u noqonayso marna ay 29 u noqonayso soo ma aragtid sababtaa waxay ku qaadataa 29 maalmood iyo bar bay ku qaadataa soo ma jeed marba dhinac bay u buuxsamaysaa marna 30 kay u buuxsamaysaa marna 29 ka dhigaysa aadaysaa intaas ay ku qaadataa okay marka saana waa u wada socdaan labadaana saa isugu wareeyaa saa u wada socda waxyaala cajaabka waxaa ka mid ah qoraxda iyo dayaxu wuxuu inoo jiraa taqriiban wax ku dhow 400 kilomitir buu inoo jiraa oo dhulka u jiraa soo ma aragtid qoraxda iyo dhulkuna waxay isu jiraan taqriiban 150 milyan oo kilomitir bay isu jiraan intaas isu jiraan u fiirso qoraxda dhulka waxay ka weyn tahay xajmi ahaan waxay ka weyn tahay taqriiban waxay ka weyn tahay rafli 100 jeer bay ka weyn tahay meelahaas bay ka weyn Soomaaliya dhulkuna dayaxa wuxuu ka weyn yahay 4 jeer buu ka weyn yahay dhulkuna dayaxa Soomaaliya 4 jeer buu ka weyn saadaradeed u fiirso dhulka iyo qoraxdu waxay kala fog yihiin qoraxda iyo dayaxu waxay 400 jeer bay kala fog yihiin marka dhulka laga fiiriyo xajmi ahaanna dayaxu 400 jeer muxuu ka yaryahay qoraxda buu ka yaryahay soo ma aragtaan saadaradeed baa markaad fiiriso qoraxda iyo dayaxa waxay u muuqdaan inay isleeyihiin soo ma u muuqdaan inay isleeyihiin haddaad qoraxda dayaxa fiirisaan inay isleeyihiin يعني markay buuxaan dabcan hada waa sax mar walba iftiinkii mar walba waa buuxaa dayaxu yani inay isleeyihiin bay u muuqdaa isma laakiin waa u muuqdaa sababtoo ah xajmi ahaanna 400 jeer buu ka yaryahay masaafo ahaanna 400 jeer bay ka fogtahay sidoo kale ma ogtihiin qoraxda iyo dayaxa inaad suulkaaga ku qarin kartid saa ma ogtihiin suulkaaga inay qarin karaan qoraxda iyo dayaxa ma ogtihiin mise ma ogidin haddaa gacantaada saa u fidiso qoraxda il isku qabato saa u saartid suulkaaga waa qarinaya suulkaaga waa qarinaya saa hadda markaan iraado isha hadda nalka u saaro nalka way wada qarsoomaya Soomaaliya nalkan hadda haddaan suulka saa u saaro waa ka qarsoomaya suulka ilaa qabatid Soomaaliya waa ka qarsoomaya sababtoo ah labadooduba muuqaal ahaan xajmigoodu diameterkoodu waa half degree waa labadooduba muuqaal ahaan Soomaaliya bisha marka dhalashadeeda markay timaado waxaan rabaa marka bisha dhalashadeeda marka inaan u imaado bisha dhalashadeeda dhowr waxyaalood baa la rabaa shuruudaha in la helo dhowr waxyaalood baa la rabaa shuruudaha in la helo kow shardiga koowaad waxaa ka mid ah dayaxu waxaynu niri dayaxu dhulku ku wareegaya markuu soo socdo oo dhexda ku beegan yahay halkan ku beegan yahay dayaxu halkan markuu ku beegan yahay oo ay line markay galaan dayaxa dhulka dayaxa iyo qoraxda markay line galaan
ogow dayixu iftiin ma leh waxaanu ku aragnaa iftiinka qoraxda soo ma aragtay halkaan oo kale markuu joogo dayixu iftiinkii qoraxda baa cagsi noqonaya adiguna halka aad taagan tahay dayixii waad arkaysaa soo ma aragtay laakiin halkan dayixu markuu taagan yahay dhinacii iftiimaya xaggee buu xigaa dhanka qoraxdu xigaa soo maaha adiga maxaa kuu muuqanaya dhinac mugdi ah iftiin ma leh saa daraaddeed ma arki kartid dayixii ma arki kartid bishu markay dhalanayso marka ay saa u kulmaan labadaas ay line galaan waa marka ay bishu bilaabanayso bishu bilaaban rabto waay marka waxa la yiraahdaa luqadda af Soomaali kuma aqaan carabiga ingiriisiga conjunction baa la yiraahdaa conjunction carabiga al-mahaqna waa la yiraahdaa iqtiraan al-mahaq ama iqtiraan hadii aanay saa line u gelin saa line u gelin bishii ma dhalan wali waa inay simaan waa inuu soo wareegayo ay saa u simaan kadib bisha dhalashada waxay bilaabaysaa markay kala dhaqaaqaan oo meelahan oo kale u dayixu yimaado Soomaaliya meelahaas kale oo dayixu yimaado si iftiinka qoraxda cagsigeedu aynu ugu aragno dayaxa bisha aynu ugu aragno Soomaaliya waa inuu dhaqaaqo halka marka waxa ugu horeeya iqtiraanka waa in horta la ogaado xilligeeba u fiirso xilligeeba iqtiraanku dhacay iqtiraanku inuu dhaco xilli gaar ah kuma xirra wuxuu dhici karaa anytime saqdhu wuxuu dhici karaa subaxnimo wuxuu dhici karaa Soomaaliya anytime duhur buu dhici karaa markay doonaan buu dhici karaa xilligaas horta si loo ogaado bisha goormay dhalatay waa in la xadido goormo uu dhacaya caalamka oo dhanna meel kasta oo la joogo dunida isku hal mar buu dhacaya waa xaadisa oo hal mar ah bishii xaadisa hal mar ah yani wadamadu kuma kala duwanaa توقيتك ساعة وينو كلا دوين ومركل اللي يراهدو توقيتك جرينويتش انت أسوأها إنه 6 ساعة بينو كدرينا سو ماركت لأنه 6 ساعة بينو كلا هرينا سو ما لكن تاسوا قولني لكن هالوقت بوضع دعاء أوكي وحن تسندونا تنبوساسو محادثة كره رمضان كسوس مالك الجمعة يبشر أي تسديد اللباتن أفرس مالك الجمعة يبشر أي تسديد اللباتن سوس عته يا bisha Febraayo ah 8 bisha Shacbaan waxay ku socotaa inay 9 tahay hadii ay saxan tahay sidii bisha lagu bilaabay laano ciidana ma soo tirin bisha bilowgeeda inagu markay dhamaatay kaliya inuu tirsanaa laakiin say Shacbaan ku dhalatay ciidan ay saama jirto say Rajab ku dhalatay ciidan ay saama jirto soo ma garan laakiin saynu ku wadno waa Shacbaan waa 9 laakiin Febraayo maxay tahay 6 soo ma maalinta xaadisadaas waxay dhacaysaa taqriiban 3:40 am وفجرك كهر 3:40 تقريبا بيدعيسا واقتران كان سومارك ومركا اي لاين جليان ديحا iyo qoraxda iyo dhulka ay line galiyaan soo ma garan maxaa kale marka xadidaya in bisha la arki karo iyo in la arki karin ko horta waxaan niri xaaladda waa la arki karaa mise lama arki karo marka laga yimaado waa in waxaan ka hadlaynaa anaga in qoraxda iyo waxaan ka hadlaynaa bisha iyo qoraxda waa inaan dayax hor dhicin soo ma garan maxaan niri bisha iyo dayaxa waa inaan qoraxda iyo dayaxa waa inaan dayaxu hor dhicin sababta haddii dayaxu hor dhaco maxay macnaheedu tahay u fiirsada wax yar iga daa hadalka xaadisada markay dhacayso fiir iqtiraankan markuu dhacayo wixii iqtiraanka ka horeeya waxa hor dhacaya maxay dayaxa hor dhacaya Soomaaliya almost dayaxa hor dhacaya wixii iqtiraanka ka horeeya iqtiraanka macnaheedu wuxuu yahay dayaxii iyo maxay soo gaaray dayaxii iyo qoraxdii soo maaha yaa dheereeya labadooda marka qoraxda dheereeya xogaa yar bay ka dheeraysaa in half degree bay ka dheeraysaa soo maaha marka wixii inta ka dambeeya qoraxda hor dhacaysa way qoraxda hor dhacaysa laakiin wixii xadisa ka horeeya maxaa hor dhacaya dayaxa ka hor dhacaya soo maaha hadii marka iqtiraankaasi uusan wali dhicin waxaynu hubnaa in dayaxu hor dhacayo qofkii markay yiraahdo bishii baan arkay iyadoo la hubiyay dayaxu inuu hor dhacay
qofkaas maxaynu ku xukumaynaa ya qofkii yani yiraahdo bishii baan arkay iyadoo dayixii la hubo inuu ka hor dhacay qoraxda qofkaas waa qof aan run sheegin soo ma isaga waa laga yaabaa inay wuxuun istusiyeen yani oran mayno waa been laan waxba cirka iska tusiyay soo ma garan laakiin haddii maalintaasi ay qoraxda iyo dayixu hor dhaco taa macnaheedu waxa weeyaan qofkaasi bil ma arag sababta bishii maba jirtaba soo ma arag waxaan jirin waay hadduu 100 kitaab maro oo 5 qof ay markhaanti kacaan bisha inay arkeen waxba kama jiraan sababtoo ah bili ma jirto saa daraaddeed cilmiga falagu wuxuu muhiim u yahay u fiirso cilmiga falagu wuxuu muhiim u yahay in la hubiyo horta bishii ma jirtaa mise ma jirto in la hubiyo bishii horta ma jirtaa mise ma jirto waa arrin asaasi ah marka la hubiyo bishii inay jirto kadib baa waxa imaanaysa su'aal ah ma la arki karaa mise lama arki karo maxaa su'aasha labaad ay tahay ma la arki karaa bishii waa jirtaa laakiin ma la arki karaa mise lama arki karo waxaan rabaa marka inaan tilmaano shuruudaha ay leedahay bisha in la arki karo shuruudaha ay leedahay waa maxay isha lagu arki karo shuruudaha ay leedahay shuruudaha haddii la fuliyo bishii waa la arki karaa shuruudaha qaarkood telescope baa lagu arki karaa laannahu u fiirso hadday isdul saaran yihiin haddii qoraxda hor dhacdo laakiin dayixuna uu dul saaran yahay uu saa dul saaran yahay ma la arki karaa mise lama arki karo laanna shucaacay qoraxda waa maxay baa qarinaya soo ma la arki karo waxaan niri haddii qoraxda hor dhacdo ma la arki karaa mise lama arki karo shuruuday u baahan tahay shuruudihii ma raba marka inaan isla fahamno wax ka tilmaano kadibna waxaan u imaan doonaa magaalada Boosaaso insha Allah taala maalinta 28 February shuruudahaas maxaa ka fulay maxaan ka fulin waa la fahmay soo baanu baan doonaa okay shuruudaha marka waxa kamid ah koow horta in la xadido waqtiga iqtiraanka kadib waxa ka dhalanaya waqtiga iqtiraanka in la xadido umriga u fiirso umriga ay bishu jirto ilaa qoraxda ay ka dhacayso umriga ay bishu jirto ilaa qoraxda ay ka dhacayso soo ma aragtay مثلا 12 duurnimo ka soo qaad baa iqtiraan ku dhacay qoraxdana waxay dhacday 6 bay dhacday soo ma aragtay qoraxda 6 bay dhacday bisha marka umrigeedu waa imisa waa 6 saacadood soo ma aragtay waa 6 saacadood waxa xisaab basiid yani waa 6 saacadood haddii ay iqtiraanku u dhaco 3 iyo 4 haduu dhaco bishuna ay qoraxduna ay dhacayso hadda imisa ku qoran qoraxda shanta iyo imisa ku qoran iyo konton iyo laba soo maaha intaanoo kale intee u dhaxaysa marka taqriiban waxa laga yaabaa in u dhaxayso 14 saacadood plus baa u dhaxaysa soo ma baa u dhaxaynaya meelahaas u dhaxaynaya marka umriga bish intee bay jirtaa waa in la xadido ilaa iminka scientifically waxa la ogaaday istiqraa waxa la yiraahdo istiqraa scientifically ilaa iminka waxa la ogaaday ugu yaraan waa ina umrigu waa inuu yahay 15 saacadood 15 saacadood waa inuu yahay umriga al-hilal waa inuu yahay 15 saacadood marka laga soo bilaabo waqtiga laga soo bilaabo al-muhaqa ama iqtiraanka inta baynu 15 saacadood 15 saacadood iyo wax ka badan waa inuu umrigu yahay hadduu dhici lahaa iqtiraankaasi saq dhexe 12 hadduu dhaco waqti dheer waay soo maaragtay يعني waxay u baahan tahay waa 18 saacadood taqriiban markaas waa inuu 15 saacadood uu yahay iqtiraan umriga waa inuu yahay caawo kale ka waran hadii ay galabta oo kale uu dhaco iqtiraanku 5 galabnimo haduu dhaco suuragal maaha caawo in bishii la arko laakiin habeen dam umrigeedu muxuu noqonayaa wax ku dhow 4 saac wax ku dhow uu noqonayaa soo maaragtay 20 saacadood ziyaado noqonaya marka umriga waa muhiim bisha umriga maxaa laga wadaa laga soo bilaabo xilliga iqtiraanka u dhacay ilaa iyo marka qoraxdu ay ka dhacayso taas waa qodob waxa kale iyadana jirta waxa kale iyadana muhiim ah horizonku markuu yahay dhulkiisa markuu yahay qoraxdu markay halka ka dhacayso dayixu meesha uu ka dhacayo u fiirso dayixu meesha uu ka dhacayo imise u jiraysaa qoraxda meesha uu ka dhacayo dayixu مثلا ضيح halkaan ka dhacaya halkaas ka dhacaya dayixi qoraxdii halkaas ka dhacday dayixi halkaas ka dhacaya
masaafada labada u dhaxaysa waa inaysan ka yaraan 7 degree waa inaysan ka yaraan maxaan niri masaafada u dhaxaysa meesha qoraxda ay ka dhacayso dayax meesha ka dhacayo waa inaysan ka yaraan 7 degree sababta haddii 7 degree ka yaraato iftiinkii qoraxda baa muxuu daboolayaa bishii buu daboolayaa lama arki karo waa inay 7 degree aysan ka yaraan okay taan waa miciyaar kale sooma mid maxaynu niri cumrigu waa inuu 15 meelaha yahay masaafadan halkan waa inaysan ka yaraan maxay 7 degree waa inay ka yaraan waxa kale iyaduna muhiim ah jooga ila moogtahay incikaaska qoraxda ay qofka bisha soo cagsanayso ayaa iyaduna muhiim ah in wax lagu arko soo maaha joogan naftigiisa ee bisha ay dhulka ka sareynayso qoraxda markay dhacdo jooga ay ka sareynayso waa inaysan iyadana taqriiban 7 degree ka yaraan 8 ilaa 7 degree waa inaysan ka yaraan joogeed waxyaalaha cajaa'ibka waxa kamid ah waxay ku sahlan yihiin waxyaalaha sawada maraya inaad ogaato joogooda halkii degree 1 centimeter buu dhigmaa halkii degree muxuu dhigmaa 1 centimeter gacanta marka mastarad baad qaadanaysaa gacantaada fidinaysaa waxaad ku cabiraysaa centimeter halkii centimeter buu muxuu dhigmaa 1 degree buu dhigmaa wax sahlan waa ka waran marka 5 degree waa imisa amal 5 centimeter inta waa 5 centimeter yaa qiyaasi kara taqriiban intaas oo kale soo ma ka waran hadii dhulka inta ka sareyso qoraxda markay dhacdo bish ma la arki karaa mise lama arki karo intaan hadii ka sareyso yaa waa shardiga iskala la xadidayo waa in inta ka sareeyo qofkii yiraahdo waa arkay iyadoo inta ka yar ka war yani waa inaanay 7 degree ka sareeyo taana waxa la yiraahdaa altitude-ka waa inaysan bishu waa inaysan 7 degree ka yaraan soo ma aragtay imisa ciyaar baan hadda sheegnay cumriga maxaan ku raahdaa inta ay isu jiraan meelaha ka dhacayaan elongation baa la yiraahdaa iyo altitude-ka soo ma waxa kale iyaduna muhiim ah iftiinka qoraxda maadaama ay dayaxu uu cagsi ka sameeyo qoraxda idaa'ada iftiinka illuminationka waa inaanu ka yaraan u fiirso waa inaanu ka yaraan boqolkiiba 0.5% boqolkiiba inta ay iftiinkii yani wax aad u yar way fiirto boqolkiiba waa inaanu ka yaraan 0.5% laanu hadaan iftiin jirin ma arki karo soo ma iftiinkii waa inuusan ka yaraan boqolkiiba 0.5 yani waa boqol meelood iftiinka dayaxa marka loo qaybiyo meel kamida marka la sii kala baro waa inaan iftiinku inta ka yaraan sababta wixii inta ka yar wax la arki karo ma taana maxaynu ku sheegnay isagana idaa'adii al-idaa'ah ama dawga intaasoo miciyaarada lagu cabiro in la xadido bishii ma la arki karaa mise lama arki karo saasay tahay haddana haddii shuruudahaasoo dhan ay wada fulaan macnaheedu ma aha bishii in la arki karo sababta weli waxaa dhici karta cirku inuu leeyahay daruur soo maaha weatherkii baa jira isaguna cirku inuu daruur leeyahay baa suuragala waxaa dhici kara buuro inay kaa xigaan baa suuragala inay geeda kaa xigaan baa suuragala soo ma aragti yani environmental factors kala jira oo iyaguna xadidaya in aysan khasab ahayn in la arko laakiin xisaab ahaan waa suuragal u fiirso anaga marka waxaan leeyahay cilmiga falagu maaha khasab inuu xadido bishii waa la arkay mise lama arag laakiin kow muxuu xadidayaa bishii ma la arki karaa mise lama arki karo waa xadidaya laanno hadday bishii hor dhacdo lama arki karo hubaal lama arki karo hadday bish dayaxu hor dhaco qoraxda hor dhacdo bishii ay ka dambayso laakiin shuruudahan ay buuxin weydana laguma arki karo haddii marka shuruudihii ay buuxiso oo niraahno waa la arki karaa waa suuragal wixii intaa ka dambeeya istil khasab maaha in la xukumo bishii in la arkay u baahanta alright aan marka u gudbo bisha magaalada Boosaaso insha Allah taala cabirkiisu waa imisa 28 February ee soo socota